waxaan ku dhashay magaalada berbera daaroole aabbahay wuxuu ku dhashay bullaxaar aabbihiis wuxuu ku dhashay dullaxaar awowgiisna wuxuu ku dhashay bullaxaar hooyadayna waxay ku dhalatay buuhoodle marka waxaan ku koobnahay gebigayguba somalilan taas waa taariikhday dhalasho marka fanka kan waxaan bilaabay anigoo yar waxaan ku bilaabay kaban iyo dhex yar aad baa la ii dhiirigeliyey niman reer cadmeeda oo caanahoo la yaqaan baa i dhiirigeliyey ismaaciil shaambiye oo odayaasha adhiiraha ka mid ahaa cabdilaahi warsame kaarshe oo loo yaqiinay cabdilaahi cawar niman sidaasa waanan ku najaxay wax kalena iyagu ima ay barine dhiirigelin anigoo tukubinayay odhan jireen laa ilaaha illa wax baas baa meesha ka dhacayo oo markaasaan ismoodi jiray kaa ay sheegayaan waxay gaadheen heer inay tartanada caalamka ah igeeyaan waanan ku najaxay dhiirigelintu taasay leedahay taariikhdu waxay ahayd 53 markaan caan ka noqday laakiin bilowgu waa ka horreeyey oo 48 baan cod buuxa tumay sidii baan yeelay waxa ii bilaabay nin isna reer burco u dhashay oo markaa jabuuti ka yimi oo si macaan u tumi jiray cabdi xandulle shanle nin la odhan jiray cabdi afweyne xasan nahaarina gacan buu i siiyey oo isaguna aad buu ii baray kanu sida loo bilaabuu ii baray laakiin ka kale waqti walba waa ila joogayoo macallinkayga weyn buu ahaa markuu halkan yimuu dib u soo noqday kooxduu watay cabdilaahi qarshe baa isaga la casumayo markaasuu bahalkii ma barato markaasaan heesaha sidaan ii sheeg heesii buu itusay waan tumay wataa kooxdii buu yidhi anugu tumi maaye adaa ka mas-uula taasna waxay noqotay dhiirigelin weyn oo kooxdii riwaayaddii dhammayd ee la soo sameeyey maalinaan isaga la fadhiistay baan heestii oo dhan ku xaafiday habeenkii nin gacan macaanun bay arkeen oo heestii dacalkiisa ka wada umaba ay baahanin violiin iyo wax kale iyo alaab raacda waa yahay 55 ninka ugu caansan carabta aadan yimi oo la odhan jiray fariid al atrash nimankaasu dhiirigelin awgeed stageka ninkaasu u baxay bay ii saareen carabtiina dhiirigelin baan kala kulmay 57 waxaa la sameeyey karnivaal ciidamada ingiriiskuna xoog bay u deganaayeen 3 qolo oo ciidamada ingiriiska baa ka soo qayb galay waa musician keliya dhowr qolo oo carab oo kale magaalo ah soomaalidana aniga iyo nin halkan ku dhintay oo la odhan jiray maxamed suleymaan oo reer cadmeed ahaa maxamed suleymaan mahdi oo isaguna biyaanoga markaa barbaranaya meeshii markaanu u baxnay biyaanogii wuxuu yidhi anugu intaan tarsan geli maayo durbaanana uma oonina goonna u baxay waxay ii sameeyeen wax aan aad iyo aad ugu raayado dhar aanan weligay gashan bay ii geliyeen 2 goobay ii xidheen wayse argeeg ah oo qori ah waa garabkan lay sudhay masalle saan ah waa garabka kale lay sudhay kaba fayga muura lay geliyey waa feedha qaawanahay kow waxaan ku najaxay kuwa kale hub aanay lahayn way soo wada qaateen kuwii cadanaynta badowgii guntiga gaabnaa booltay buu soo xidhay iyo casuumadaha ingiriiska kuwa la qaato scotchka baa iyagu kuwoodii gaagaabnaa la yimi anugu tiibaan horta kow ku qaatay oo dee ingiriiskay ku cusbayd wax ku cusub bay ahayd tunniinkana iyadoon la soo gaadhin muusig buuxaa oo ilaa 11 qof ugu yar tahay baan kaban keliya kala soo horjeestay taana kow baan ku qaatay codka aan tumayna wuxuu ahaa cod wanaagsan oo aan muddadan breaks ku samaynayay meeshii ninka koobaad ee ka soo baxay anigu noqday markaasaan anigu isu arkay nin u sarreeya adduunka waana dhiirigelintii
halkan berigaa halka kanna waa la tuurtuurayayo meel ay galaan bay lahaayeenoo dhagax baa dabada loo qabtay. lixdan iyo kowdii waxay soo qaaday doonni waxaan ka soo degay maydh kastamka waxaa haystay nin la odhan jiray cabdiraxmaan caddaane. ninkii bay sii dayn waayo 2 maalmood aanu si macaan wuxuu la hadlay dayaxa oo macallimiinta joogta halkan kuwii haystay ay ahaayeenoo niman dhallinyaro calanka helay ay qabsadeenba magaalada baa laysidhi meel u baahan geeya. meeshuna si macaan bay u dhisnayd oo ingiriiskaa gacanta ku hayay. waa rag caanahoo la yaqaano cabdisalaan xaaji aadan baha principal, waxaa ku xigay xasan cali henderi, waxaa joogay ku caddeeye, waxaa joogay ninkii la odhan jiray lumambe cabtashe, niman saasa. ardaydii halkaa ahaa qaar baa b h d haysta. waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cashuuriyo waxaa leeyahay cabdulkariim cashuuriyo. marka nimankii buu taaru diray oo uu yidhi ninkii baan halka ku hayaa. waxaan xusuusnay gaadhigay ii soo direen wuxuu ahaa land rover, lambarkiisa wuxuu ahaa series 1, lambarkiisa waxaa la odhan jiray 800 buu ahaa. waxaa waday nin caan ku ahaa waqooyi oo la odhan jiray darayo. xaggii buu igeeyey. nasiib wanaag waxaan kala kulmay dee rag afgaranaya fanku wuxuu yahay. kii mashiinka biyaha iyo elektriga ka shaqaynayay abwaan qarsoon buu ahaa. waa axmed salebaan bidde, nin yarna wuu ahaa. marka afkay kaga joogeenoo wuu nagu soo baxayaa bay lahaayeenoo dee kabsankoodana ma gaadhsiisnayno. murtina ilaahay baa baray. tixdii ugu horraysay ee uu fasaxa ku helay anaa fasaxay. markuu hortooda ka mariyey oo is-egeegaya marninka kan ma qaban karaysa iyagu soo fasaxayaae imikaba aynu fasaxno oo riwaayadda aynu ardayda u samaynayno isagu midhaha ha yeesho. 48 saacadood buu noogu keenay midhihii riwaayadda oo komplees ah, su'aal jawaab gabay geeraar. nimankii indhaha soo booda waxayna khasnad baynu ku fadhinay. waa yahay waxay noqotay taariikhda kow burco oo bari looga keeno riwaayad. haddana waxay noqotay taariikhda kow koox kubadda ciyaarta. iskuulku waa ka fogaa magaalada la yidhaahdo eergaabo. sida fardaha nimankan loo koriyo inta ay wax cunayaan mooye kubad bay ciyaarayeen. ciid bay ku beegnayd burcaanu nimay. tiim iska sahlan baana loo soo dirayoo way ka badiyaan. kii weynaa baa la soo diray way ka badiyaan. marka taariikhda kow weeye burco oo bari inta lagaga yimaado kubad laga badiyo riwaayadna loo dhigo. markan waxay wada tumay ku gacan macaanaaday. 2 cod baan sameeyey. waxaa heesaaye ahaa nin halkan aan markii hore ugu imi 51 oo isagoo heesaya berigii halkan la odhan jiray reelyo kudhow andarbugadda u tumay. ninkii nasiib darro markii dambe waa libuu ku dhammaystay. waxaa la odhan jiray maxamed faarax makarone. si xad dhaafana wuu cod macaanaa. maxamed faarax wuxuu ka shaqayn jiray cabalan wireleska. kooras baa cadan loogu soo diray sababtuu igu yimi waa kooraska. anuu iga gartay anna isagaan gartay. had yeer jeer waa fadhiisan jiray. cod iminka halkan lagu jecel yahay oo nasiib wanaag markii hore la igaga murmay, laakiin cabdulaahi qarshe uu idaacadaha ka qabtay isagoo sheegaya inaan leeyahay. waa cod caanoo raaxaya la yidhaahdo. codkaas iyo riftoor baan xafidsiiyey. riftoor gacantuu ku saydhado wuxuu jeclaaday raaxeeye. wuxuu halkan ku soo noqday isagoo raaxaya sita. raaxaya markaa sida geedkan dhamaskee la yidhaaho carabtaa keentay buu ku noqday magaalada.